kulanti waana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ee Hilaac qodobada ku daawan doontaana waxa kamid ah mid kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed oo ka howlgala warbaahin ku taala magaalada Muqdisho ayaa maanta la filayaa maxkamad inuu ka soo muuqdo goobo far badan oo ganacsi ah oo Soomaali leedahay Koonfur Afrika ayaa boob laga geystay walina halka waxa ka soconaya dhibaato lagu hayo Soomaalida Jubbaland Ahmed Islam Ahmed Madoobe ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkiisa heshiis ay kala gaareen hogaamiyaha guud ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wali ku sii adkeysanaya qof iyo cod iyadoo dhammaan madaxda maamul goboleedyada ay dhan ka yihiin madaxweynaha maamulka Galmudug Masar Qorqor ayaa mar kale shaaciyay wajiga saddexda shirka xilliga uu furmayo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay khilaafkii Puntland iyo dawladda dhexe in hadda xal laga gaaray dhammaan xisbiyada dalka ka jira ayaa la filayaa saacadaha iyo maalmahayna soo aadan inay ka hadlaan war murtiyeedka hordhac ah ay ka soo baxay shirka Dhuusamareeb wajigiisa labaad warkina waa naga inta oo idinkaga imaanaya Hilaac TV